على الدورة لقول لابتي كوبي سجاشن كي ودرير بدن حركة يا براد بشدة كهذا لسه أو سلوا على كلا قيب سماي وعلى كلا قيب سماي مشروع وين نقول يسني نصر جي لهي وينو يمدي هادو نلقى على برشقي يبابي بابكي وهبكي تذكي بحسنا جري وكبراروجي دكتور دسنا بوحر ما قدمن وين نقول يسني الحمد لله رب العالمين إلهي نصر جوا المكان إلهي وين المدينة قد بصوم مدا وأندياء أيام ما تشوقا الحمد لله رب العالمين تدور ويقول لي يشرين إن بدن ويقول لي يشرين إن بدن ويلا يابني لكن وحبايم مقضي وحيم مقضي هدف كيس مرميني ما أنت ما تشوقنا ما كبوش ولا تشوقنا تذكين له كان سنة على قروح بدن وهو كان كلو كهدم دايو ودذكينا وحكرت كا دذكينا عقل وفكر كا إنه دايو ترى والله قدم دايو وبس وكشركو باقي شركة سوا شركة قروح بدن وشركة بوسوم مدنية قد بوسوم مدا قد بوسوم هتديسي مدودي مقالدي بورما قد بوسيس كوكولا يمدي ما شاء الله مقالدي بورما قد بوسيس كوكولا يمدي غف يدور إنه مدح شو كمان الحمد لله تاسو واحد هاي أدي مهمته هتديسي مدودي ترديسي مدودي مروقيسي مدودي عدوديسي مدودي من در الدواء إلا مشيني له هل كلاقي قارو قد بسمات وابنت قد بسقي إثيوبيا مقالي بورما وذي يمدي waxay noqonaysaa magaalada Boorama magaalooyinka ugu cajiibsan Soomaalida marka qaar hadda ma iimaas garan karaan laakiin waxay noqonaysaa magaalada Boorama magaalada ugu cajiibsan Soomaalida marka waxaan kaloo mahadnaqayaa hal reer oo beelaha Soomaaliyeed kamid ah oo aad xaaladii adkeyd murugsaneyd warwarka badnayd dadka mahadada ku reebtay dhamaan beelaha Gadabuusi iyo kacaanka cusub ee Gadabuusi na garab joogsaday heelka noo sameeyay daawaca noo qaaday daawada noo keenay xuduudka noo furay beesha ogaadeen laabteedii ku ogsooni baa ilaahay laabteedii ku ogsooni weligiiba ogaadeen iyo Gadabuusi dad walaalo ahaayeen dad deris ahaayeen dad isdhexgal ahaayeen dad wax wada cunay ahaayeen marka Mustafa Agjar adigana aad baa kugu mahadnaqaya shaqada wanaagsan qabatay ee nagala shaqaysay iyo mas'uuliyiinta maamulka degmada Awbare iyaguna aad bay u mahadsan yihiin daawacyada iyo gargaarka sidaad nagu fidinayseen ee walaaltinimada leh laabta ka ogsooni marka dhalinyar badan oo Gadabuusi waxaan arkayaa muddo badan ma waxaan ka shaqeynay midnimada Gadabuusiga oo aan raadinayay inuu Gadabuusi mid noqdo oo nasrigiisu yimaado marka maanta waqtigeedii baan joognaa midhihiisi baan qoran doonaa in yar baa inooga dhiman ha degdegina dadka waaweyn u daaya salaadiinta u daaya ugaaska u daaya talada ha degdegina guul baa inoo dambaysa mid qurux badan mid ay Soomaali la tacajabto kacaan cusub oo Gadabuusi baa kacay oo geeska Afrika oo dhan bedeli doona dhalinyarta uma muuqata hadda laakiin hadda geopolitics hadda akhrido oo qof geopolitics akhriya tahay waa dareemi kartaa marka jeel cusub jeel damiir leh jeel hoggaansan jeel hore ka duwan marka waabkii waa naga kacay baabkiina waa inaga kacay dadkii inaga baahsanaana waa isku yimiday Gadabuusi meel kastuu joogo magaalada Boorama iskugu iman doona waad arki doontaan insha Allah marka dhalinyarta hadda tawaawacay moodaysa in lagu laabtay 1990kii talooyinkii xumaaday waqtigaas sameynkiisu u dhamaaday waxay noo bilowday gud cusub oo Gadabuusigu hogaamin doono geeska Afrika oo dhan bishaaraysta taas ay noo soo socota taasina ku liibaanayna inamada jabhadaha mataqaanaa jooga magaalada Boorama iyo hareeraheega sida dadku ugu hogaansanaanteen sida umadiina u ixtiraamteen sida kala dambeynta u samaysateen aad iyo aad bay idinka mahad celinaya dhamaantiin marka in sida aynu u qurux badnaano dhamaantiin waanu jecelnahay
لكن قروح بنانت waxa ku timaada marka talada la mideeyo marka qulubta la mideeyo marka aynu mataqaana cududeena iyo muruqeena iyo maalkeena marka aynu mideyno markaas ay taladeenu qurux banaanaysaa laakiin gaarbuusi qaybsan gaarbuusi reer kala fadhiya maanta taariikhda dhacday gaarbuusi isku soo gurmaynay ma aragteen intii taariikhda soo marsay ma arag gaarbuusigu shaqrib min maqribu maanta ka kacay meel kastuu joogo dareenkay muujinayaan waa dareemaysaa kolley idinka warrami maayo oo dad aad ula socdaatiin waana dareemaysaa marka taasi marka waa nasrigii waxa dhamaaday boqolkii sano dhamaatay boqolkii sano ku buuxday marka guul baynu joognaa ha degdegina dadkana ha horboodina ha lagu kala dambeeyo talada ciday ku aqoontahay ha loo daayo siday ku qurux badan tahayna ha lagu daayo kaliya waxa noo dhiman inaan dekedeena dhisano maanta deegaankeena inaga joogna magaaladeena Boorama inaga haysana 700,000 ee Boorama ku noolee idii sheegay 40 milyan dadka qaar bay goolay sida kalimo waalay 40 milyan soo qoraan ma garatay marka xisaabaha dadku garanayeen maaha quwad la caburin kara ma ahay awood la cadaadin kara ma ahay laakiin awood markay taladu awood markayna mideysnayn qiimo ma sameeyso waxa qiimaha sameeya waa marka awoodda la mideeyo ee awooddu mid noqoto ee meel isku tagto ayay sharaf karaamo iyo cisi ku dhaxleedahay dadka dhexdeeda markaas lagu qadarinaya markaas lagu qiimeynaya laakiin marka kala tafaraaruqsan tahay dadkana wax ku soo kordhin maysid naftaadana wax ku soo kordhin maysid ummadaha kalena wax ku soo kordhin maysid marka maanta waqtigeedii baynu joognaa dhalinyarta le waa la kala jabay ciisa dagaal lagu qaadaya ma jiro oo ciise hadda dagaal lagu bilaabay ma jiro saxaafadun baa laga wada hadlaya marka waxde hadii inagu bilaabmato ha way difaacayna deegaanadeena laakiin hadii waxba jirin waxaynu ka baxnay xaaladaynu ku jirnay laakiin midun baa idinka digay anigu hadda gaarbuusi mid baa idinka digay midaasi wixii halka inooga imanaya Hargeysa ama hal idin keeno bustayaal ama hal idin keeno dig oo la rabo in dadka dhaqtar ku jira gargaar loo geeyo aad baan uga taxadiraysaan waxaad qaadanaysaan mar diigaga qaar sunba ku jirta marka ka taxadira waxaad hubtaan oo idinku dadkiina ka qaadaan ayuun baa qofka kalena mataqaana la siin karaa laakiin wax meel kale laga keenay iska ilaaliya dib inooga ilaaliya waabki waa naga kacay baabkiina waa ka marka nasrigii waynu joognaa nolol qurux badan baa inoo bilaabanaysa mustaqbal qurux badan baa inoo bilaabanaya dekedaheenaasaynu dhisanaynaa cid hadda duulaan inagu soo aad ma jirto ciise saxaafadda baynu iskaga jawaabaynaa arrinkaa dad badan baana fahmi karin marka halkiina jooga amniga inoo sugan kala dambeynta inoo daaya magaaladeena inoo qurxiya maanta magaaladeena aaway ninkii xodaye hablaha u booteynayay waxa laygu yidhi ambalaas wuxuu iska dhigay mid cabdi haymey ma jooga ninkii maxkamadda haystay aaway hogaankii nabadgelyada maad aragtaan ma jiro waxaasoo dhan way tegeen maanta gaarbuusaa maamulkii haysta gaarbuusaa kala dambeyntii haysta gaarbuusaa cashuurtii qaadaya gaarbuusaa isxukumaya isagaa ismaamulaya isagaana isku talinaya gaarbuusi dambe loo talinaya loo dhamaatay marka taasaan ka shaqaynaya muddo badan oo waqti geliyey oo aan quruxdaas ii muuqatay quwadda intaa leega waxa ii qalmi weyday oo qalbigayga iyo maskaxdayda ka degi weyday gaarbuusi 4 milyan oo min Ethiopia ilaa iyo waqooyiga ilaa iyo Djibouti daadsan oo taladiisu kala daadsan tahay siyaasadda goddeer baynu ku dhacnay godkii dheeraynu ku dhacnay ku soo saarnay mar labaad inaan ku laabano marba godkii baashii naga dhacday mustaqbalka jiilka hor oo dhan god bay kaga dhacday godkii waa ka saarnay laakiin ku celin mayno markaa sidee markaa lagu celinay godkaa waxa lagaga soo saaray midnimo markaa midnimada xoojinaysa midnimadiina ha ahaato gaarbuusi andanya taas ay midnimadeenu tahay naga gaarbuusi andanya gaarbuusi mida
quwada ayaa mataqaanaa quruxdiisu muuqanaysaa geeska afrikana ka dhex muuqanaya saameynna ku yeelan doona kacaankaa maanta gadabuursiga u kacay taariikh cusub oo dahaba ayuu qoraya taariikhduna dadka qaarna waxay ku qortay baal dahaba dadka qaarna waxay ku qortay baal madoobay ku qortay marka mar walba noqo ka baalka dahaba u gala turki ha noqon ka baalka madow u gala turki dadkii la kala jejebin jiray dadkii la kala qayqaybin jiray dadkii loo kala sheekayn jiray dadkii wax loo yar kala dhiidhiibi jiray way soo dhammaatay qofka gadabuursiya ee lagu arko isagoo horgala shaqadiisa laga qabsanaya qofka gadabuursiya ee gadabuursinimada dhinac uga leexanaya ee gadabuursinimada leexinaya ee gadabuursinimada daciifinaya isaga shaqa laga qabsanaya kaliya waxaan u baahannahay nin gadabuursinimada quweynaya oo qayeynaya kaasaa innaga ina anfacaya kaasaa midnimadeenu ku qurux badan tahay maanta meel qurux badan bay noo maraysaa magaaladeeni boorama waxay noqonaysaa magaalo lagu soo jabo magaalo lagu soo jabo idinkaa iminka haysta amnigii idinkaa haysta soo celiya mataqaanaa wixii burburo dhan waa la samaynayaa ka shaqaysta magaaladiina qurxiya nadaafiya qof kasta xil iska saar deegaanku waa deegaankeenii environmentii baa mataqaanaa aynu leenahay dhulku waa dhulkaagii cashuurta adigaa iska qaadi doona cashuur dambe qof qabiil kaloo soomaaliyeed kaa qaadaya ma jiro cashuur dambe qabiil soomaaliyeed taana ku ballan qaadaya cashuur dambe oo gadabuursi leeyahay oo qof kaloo soomaaliya gacantiisa ku dhacsaa ma jirto cashuurta gadabuursiga qof gadabuursiya qaadaya qof gadabuursiya lagu adeegaya qof gadabuursiya serviska lagu bixinaya noloshu saasay ku qurux badan tahay laakiin markaad adigu talada iska wareejiso aad mataqaanaa muwaafaqadiinu kala leexato ee idinku kala irdhowdaan ayay wax walba xumaadaan ummaddu way burburtaa bal qiyaasa idinku 4 milyan oo gadabuursiya oo bilaa maamula oo kala daacsan oo kala dambeyn lahayn qaar baa iminka aaminsan waxay leeyihiin somaliland way soo noqotay no somaliland way ku daysay forget somaliland anaa kule somaliland way ku daysay sidaasaa lagu kala qoomama la-aanaya ayagana waanu ducaynaynaa wixii ay galeenna waa la iskala xisaabtamaya taayada taas meel bay taala laakiin calankii hore meesha ka taagnaan jiray dib meesha ugama taagnaanayn kaa babanaya iminka nasrigaa idiin babanaya ee adalyaanka ah ee buluugga ah ee xijruhu ku daateen ee dhiiggu ku daateen ayaa mataqaanaa korkiina ka baban doona kaasaanaad ku raaxaysan doontaa marka mar kasta waxaan idinkula dardaarayaa inaad midnimadiina xoojisaan dardaaranka anugu mar kastaan idin siinayaa waa inaad midnimada gadabuursiga aad xoojisaan waxa makaahil la yidhahdaa ma jiro wax maxaacsan la yidhahdaa ma jiro wax habar cafaan la yidhahdaa ma jiro waa gadabuursi andanya siyaasaddaasaan ku soconaynaa waayo markay siyaasaddu ay kaa leexato haddii ceelkaaga dhacdo sida looga soo saaraa way adag tahay dad ma yala adagun baa ka soo saari kara juhdi geliya wakti geliya dad badan waa niyad jabeen waa leexanayeen waad waalan tahay waa lagu odhanayaa waa lagu caynayaa waa lagu aflagaadaynayaa waalidkaa baa lagugu soo dirayaa dhinac kastaa lagaa soo maraya laakiin qof ma yala adagun baa ka bixi kara marka guushaasaan warta idii ogahay taasaana gadabuursoo dhan ugu bishaaraynaya sida quruxda badan lee maanta aad isku kala dambaynaysiin ee isku maqlasaan awal waa laysku kii diri jiray waa laydinka dhex shaqayn jiray munaafaqad baa laydinku samayn jiray sixir baa laydinku samayn jiray baab baa laydiin aasi jiray wixii oo dhan god baa lagu riday maalin maanta ay kaga qurux badan tahay gadabuursi dad ilaa dibad ma jirto idinku indhiina idiin macalin dacdooyinka dhacaya taariikhda dhibcay ku qoran qaarna dhibcaha madoobay galaan qaarna dhibcaha waxay galaan cas bay galaan markay cibaara dhacayso wax walba sabab baa loo sameeya marka sababteedii waad hesheen taasayna ku timidee jiilkanayna ku timidee jiilka warafka idinku dagaaltamay waa jiilka idinka saaray gudnimada waa jiilka idinka saaray kala qoqobka waa jiilka idinka saaray
xaaladaad ku jirteen waa jiilka aad ku raaxaysan doontaan midhahooga quwadda aad arkayseen haddii la hogaamin waayo oo la hagi waayo oo dariiq fiican lagu hagi waayo oo laisku nidaamin waayo quwad ma noqonayso marka quwaddaasaanu rabnaa inaynu geeska saamaynteeda ku bedelno geopolitica geeska Africa inaga go'aaminayna dadka qaar waxay oranayaan ninkan macruuf uu sheekeynaya ma yacaruur mataqaana ma sheekeynayo laakiin waa taariikha isqoray waa sabana isqoraya haddaad arki jirtay geerbuusay ka leecsan tahay waqtiyada qaar way jiraan ha qofku soo maraa reeruhu waa soo maraan waa ka leecdaa marna waa toosaan laakiin waqtigan waa waqtiga geerbuusiga isku toosta marka wax ciise waxaynu dagaal ugu qaadno duulaana ma jiro duulaan ciise ku qaadayna ma jiro hadduu ina soo weeraro ha iska difaacayno inagu duulaan mani qofka reer baa ina laayay reer baa xasuuq inoo geystay xaruurteennii daktarada ku gumaaday kaasaan la xisaabtamayna ciise laakiin duulaan ku qaadayno geerbuuso intuu hubkiisa wada qaad xagga wada tegaya ma jiro hadduu ina soo weeraro xuduudihiisa iyo dhulkiisa waan naqaanaa waa iska difaacayna taa xaq baynu u leenahay waana gartay laakiin ciddii waxaan samaysay ee carruurteenna mataqaana dhakhtarada xabadaha la dhacaysay dadkaasaan la xisaabtamayna kuwaasayna cidi inaga jeedinayn marka nasrigaasaa ilaahay noo furay nasrigiina gacantaynu ku haysanaa dadka talada uga dambeeya dadka idin maamulaya ee mataqaanaa duubka idin ah ee madaxda idin ah ee ugaaska idin ah ixtiraam taasi ku jirtaa mataqaanaa sharafteenu iyo gobonnimadeenu saasaan isku ognahay waayo waxaan arkaya dhalinyaro badan oo baraha bulshada kule mataqaanaa ku qaybsan oo isla xaaladii horaa lagu noqday waa nala dilaalayaa dhiiggaygii baa la iibsanayaa ma jirto bicturekan idima muuqdo laakiin waa bicture qurux badan waan adiga qori doontaan aniga taariikhdaas adiga qorsaan in aad geeska Africa aad ku soo celin doontaan awooddii aad lahaydeen ee Adalian power way soo laabanaysaa waana lagu jiraa waqtigeedii gugeygiina waa curtay ifafaaladeediina waad aragtaan marka halkaas hayeenkeenu yahay taasaynu saameyn ku yeelan doonaa haddii reero badan oo Soomaaliyeed ay inala yaabanaayeen dee cibrooyin waxay jira qornay marka taas dhacdaa buuggaa hore waa laabmay page cusub baa nolosha u bilaabmay beerweynta geerbuusi 40 milyan iyo 700,000 magaalada Boorama ku nool page-kaa cusub ee nolosha sidaad u maareyn lahaydeen